بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا برامجka wararka maanta qodobadaan idinkugu hayno waxaa kamid ah dagaaladii ka dhaxaloosnaa dagaalamayaasha Xisbullah iyo ciidamada Israa'iil ayaa sii xoogeysanaya inkasta oo la hadal hayo xabad joojin dhaxmarta dawladda Lubnaan iyo Israa'iil oo dagaal toos ah aanu ka dhaxayn militariga Israa'iil oo qiray in Xisbullah weerar toos ah ay la beegsatay gaariga gaarka ah ee taliyaha taliska ciidamada Israa'iil ee dhanka waqooyiga hogaamiyaha sare ee Iran oo soo saaray digniin ku aadan dagaal lagu hayo dalkiisa Trump oo si cara leh uga falceliyay tilaabo kalan ah dagaalka uu wado ee Iran oo uu qaaday aqalka Koongareeska ee waddanka Mareykanka wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Muqdisho ayaan sidoo kale barnaamijka idinkugu haynaa ruushka oo isna si adag uga hadlay dhoolatus NATO ay ka bilowday waddanka Serbia dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay barahna bulshada ama aadan hore ugu xirnaan ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waliid xaaji cabdi oo barnaamijka ila tabinaya ayaa inoogu bilaabaya wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda bariga dhexe waliid Baasanid Maxamed iyadoo xaaladdu ay tahay mid aad iyo aad u adag welina ay taagan tahay xiisadda colaadeed ee ka dhex aloosan Mareykanka iyo Iran ayaa dhanka Iran waxaa maanta hadal jeediyay hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ali Khamenei waxaana ugu baaqay shacabka Iran in ay ilaashadaan midnimada qaranka isagoo ka digay isku dayo lagu kala fogeynayo bulshada kadib waxa uu ku tilmaamay guuldaradii cadowga ka soo gaartay furimaha dagaalka fariin qoraal ah oo uu soo diray mujtamac Ali Khamenei laguna akhriyay munaasabada lagu xuseeyay geerida aas-aasihii jamhuuriyadda islaamiga ee Iran Ayatollah Ruuxullah Khomeini ayaa ku sheegay in cadowga Iran uu hadda diiradda saarayo dagaal kale oo uu ku burburinayo adkaysiga shacabka mujtamac qawani oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri kadib markii uu ku guuldareystay in uu wajaho ciidamadeena oo uu dhulka kula dagaalamo oo dhulka kala kulmay jab weyn cadowgu waxa uu hadda xoogga saaraya dagaal adag oo lagu wiiqayo niyadda shacabka iyo go'aanada mas'uuliyiinta Khomeini ayaa sheegay in tallaabo kasta oo niyad jab ama rajo xumo ku abuuraysa shacabka ay u dhiganto taageero loo fidinayo cadowga waxa sidoo kale uu ku celiyay mowqifka adag ee Iran ee ay ka taagan tahay arrinta Israa'iil isaga oo sheegay in dalkiisu aanu ka laaban doonin siyaasaddiisa dhanka Mareykanka madaxweyne Donald Trump ayaa ku tilmaamay mid aan wax macnaha lahayn codbixintii aqalka wakiilada ama Koongareeska ee lagu ansixiyay qaraar lagu xadidayo awoodiisa military ee ku aadan dagaalka Iran Trump ayaa sheegay in codbixintu ay dhacday xilli ay socdaan wada hadallo uu ku doonayo in lagu soo afjaro colaadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran aqalka wakiiladu wuxuu shalay qaaday codbixin aan macno lahayn si loo xadido awoodahayga xilli aan ku jiro wada hadalladii ugu dambeeyay ee lagu soo afjarayo dagaalka Iran ayuu yiri Trump oo fariin ku qoray baraha bulshada qaraarka golaha Koongareeska ayaa lagu ansixiyay 215 cod halka 208 ay diideen iyadoo 4 xubnood oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah ay ku bireen dimuqraadiyiinta inkasta oo qaraarka loo arko mid inta badan astaan siyaasadeed ah haddana waxa uu muujinayaa walaaca sii kordhaya ee Koongareeska ee ku saabsan awoodda madaxweyne ee ku aadan dagaalada aan sida rasmiga ah loo ogolaanin dagaalka Mareykanka iyo Iran ayaa bilaabmay bishii February 28 oo ah maalinta ugu dambeysay waxaana tan iyo markaasi xabad joojin nugul laga dhaqan geliyay dagaalka iyadoo oo bishii April uu bilaabmay dhaqangalka ee heshiiska ku aadan ama xabad joojinta ku aadan arrimahaasi iyadoo oo diblomaasiyiinta dalalka caalamku ay wadeen dhexdhexaadin lagu raadinayo heshiis nabadeed oo labada dal u dhaxeeya waatahay markan aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda colaadeed ka dhex aloosan Xisbullah iyo Israa'iil iyadoo ay socdaan dadaallo dhanka wada xaajoodka ayaa docda kale
dagaalku waxaa lagu soo warramayaa in uu si laba lixaadsanayo warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in diyaarad drone ah oo ay leedahay Xisbullah lagu dhuftay gaariga taliyaha taliska waqooyiga ee ciidamada Israa'iil xilli uu ku sugnaa koonfurta Lebanon iyadoo aan la soo warin waxa khasaaraha oo ka dhashay weerarkaasi hay-adda warbaahinta dadweynaha Israa'iil ee magaceeda loo soo gaabiyo kan ayaa baahisay in diyaaradda aan duuliyaha lahayn ay beegsatay gaariga taliyaha balse weerarka aanu sababin waxa khasaaran nafeed ah dhanka kalena ciidamada Israa'iil ayaa xoojiyay weerarada cirka ah ee ay ka fulinayaan koonfurta Lebanon inkasta oo horey loo shaaciyay heshiis xabad joojin ah sida ay sheegeen wariyaal ku sugan goobaha ay colaadaha ka socdaan wararka ayaa tilmaamaya in duqaymo iyo weeraro diyaarado aan duuliye lahayn lagu qaaday dhowr magaalo iyo deegaano ku yaala gobolka Bekaa iyo degmada Nabate weerarada ayaa waxaa lagu beegsaday agagaarka biyo xireenka Qaroon Mifdoon Samar Qoliya Ma'roob iyo Sab'adin war kale oo colaadan la xiriira ciidanka qaramada midoobay ee ka howlgalaya koonfurta Lebanon ee magacooda loo soo gaabiyo UNIFIL ayaa sheegay in hal askari la dilay halka laba kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii madaafiic ay ku dhacday goob u dhow magaalada Marjacoon saacadihii la soo dhaafay weeraradan ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo in xaaladda amni ee xuduudda Lebanon iyo Israa'iil ay mar kale sii xumaato inkastoo dadaalo lagu doonayo xasilooni in lagu soo afjaro colaadan ay socdaan isla wararkan General Ismaaciil Qaani oo ah taliyaha ciidamada Qudus ee ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ee IRGC ayaa waxa uu sheegay in dalabka ugu weyn ee Xisbullah uu yahay in ciidamada Israa'iil ay ka baxaan goobaha ay hadda kaga sugan yihiin Lebanon isla markaasina ay ku laabtaan meelihii ay joogeen oo hor dagaalkii u dhaxeeyay Mareykanka Israa'iil iyo Iran Ismaaciil Qaani ayaa waxa uu sheegay in dagaalyahanada Xisbullah ay dhawaan arki doonaan natiijada waxa uu ku tilmaamay iska caabintooda geesinimada leh ee ka dhanka ah ciidamada Israa'iil ee ku sugan koonfurta Lebanon General Qaani ayaa sidoo kale sheegay in taageerada Xisbullah oo wajahaysa ciidamada Israa'iil ay tahay waa sida uu yiri waajib saaran dhammaan muslimiinta isagoo ku baaqay in la sii xoojiyo taageerada ururka ka saarista Israa'iil ee gobolka waa yool la gaari kara ayuu yiri taliyahan ka tirsan ciidamada IRGC isagoo muujiyay mowqifka adag ee Iran ee ku aadan joogitaanka iyo saameynta Israa'iil ee bariga dhexe hadaladan ayaa imaanaya xilli weli ay taagan yihiin xiisadaha gobolka gaar ahaan dhanka Lebanon halkaasi oo ay ka sii socdaan isku dhacyo iyo weeraro u dhaxeeya Xisbullah iyo ciidamada Israa'iil inkastoo ay socdaan dadaallo dhanka diblomaasiyadda oo lagu doonayo in dagaalkan lagu soo afmeero bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta ugu yaraan 7 arday oo dhigata macad farsamada gacanta ah ayaa lagu afduubtay gobolka Sampara ee waqooyi galbeed ee dalka Nigeria sida maanta booliisku ay sheegeen weerarka ayaa ka dhacay kadib markii dabli looga shakisan yahay burcad hubeysan ay weerareen hoy ardadu ay ka deganayeen banaanka magaalada Kora Namoda booliisku waxay sheegeen in dablaydu ay ardada ay u kaxaysteen meel aan la garanayn kadib markii ay weerareen guriga kirada ku deganayeen ardada oo ku yaala aagaasi gobolka Sampara ayaa muddo dheer la daaladhacayay weeraro iyo afduub ay geystaan kooxo hubeysan oo madax furasho uga furanaya u qafaasha dadka rayidka ah colaadda Ruushka iyo Ukraine ayaa weli socota taasi oo saameyn ku yeelatay xiriirka Ruushka iyo NATO haddaba dowladda waddanka Ruushka ayaa maanta waxay ku eedeysay NATO inay kordhinayso saameynteeda gudaha dalka Serbia oo xulafo la ahaan jiray Ruushka waxaana ku tilmaamay tilabadaasi mid lagu cadaadinayo dalkaasi Moscow ayaa sheegtay in dowladtuska military ee Platinum Wolf uu yahay tusaale muujinaya isku day lagu doonayo in Serbia lagu hoosgeeyo saameynta NATO dhinaca kale Serbia waxay sheegtay in dowladtuskan sanadlaha ah oo bilowday 1 bishii June kana socda taliska Yurub ee ciidamada Mareykanka uu yahay tababar loogu talagalay isdhaafsiga khibradaha iyo kor u qaadista wada shaqaynta military tababarka waxa ka qayb galaya Serbia iyo 8 dal oo xubno ka ah NATO wahagaag
waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho naga soo gaaraya gaar ahaan xaaladdu sida ay tahay oo maxamed inooga warrami doono xaaladdu sida ay tahay dhinaca kale waxaa soo baxaya warar kala duwan oo la xiriira colaadda ka dhex aloosan xisbullah iyo israa'iil iyadoo saacadihii lasoo dhaafay lagu soo warramayo in ciidanka israa'iil ay duqaymo wadaan dhinaca kale ilaa iyo 6 tuulo oo ku yaala koonfurta Lubnaan ayaa hadda la sheegayaa militariga Israa'iil inay ku amreen dadku inay iskaga baxaan madaxweynaha waddankaasi Lubnaan Joseph Aoun ayaa isaguna waxa uu sheegayaa in xal dhanka diblomaasiyadda uu ku imaan karo haddii dagaalka la joojiyo isla markaasna Israa'iil ka bixitaankeedu ku xiran yahay in loo hoggaansamo wasiirka u dhigay dadaalada Mareykanka hormuudka ay ka yihiin ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda ka dhex aloosan xisbullah iyo Israa'iil laakiin su'aalaha la isweydiinaya waxay yihiin waxa wada hadlaya dowladda Lubnaan iyo Israa'iil oo dagaal toos ah uusan ka dhaxayn halka xisbullah oo dagaalka ku lugta lehna Israa'iil wada hadal toos ah aysan kula jirin arrinkaasi oo lagu sheegayo inuu yahay mid ka hor imaanaya sidii dagaalkan lagu soo afjari lahaa waa tahay mawlid intaanu gudbin falanqaynta ku aadan muqdisho aanu ku hakano xaysiin ku aadan ama qadar xaysiina oo daawadayaasha kadib waanu gudbi doonaa arrimaha ku aadan muqdisho soo dhawaada daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wararka maanta oo talaatan aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee magaalada muqdisho maxamed dabcan saacada ka hor xog fiican ayaad naga siisay xaaladda magaalada muqdisho iminka xalku xagee u maraya waa sidee xaaladdu waa tahay mawlid xaaladdu maantay sidii saaka ay ahayd ma ahan waa ay degtay kadib markii ay bilaameen wada hadallo ay wadeen dhinacyo kala duwan waxaana joogsaday rasaastii ka dhacaysay qaybo kamida magaalada muqdisho oo in badan dadku ay dhegta u taagayeen xalku halka uu ku dambayn doono iyadoo dhinacyada mucaaradka ah ay jeedinayeen eedeymo xoogan sidoo kalena dowladda Soomaaliya ay soo saareysay warar kala duwan oo ku aadan xaaladan iyo in aan loo dul qaadan karin waxa ay ku tilmaantay kooxa qaswadayaal ah iyo kooxa afka soo duubtay oo magaalada ku sugan kuwaasi oo ay ku eedeysay in amniga magaalada Muqdisho ay ku yihiin qatar sida ay tilmaantay marka xaaladdu waa degan tahay dhowrkii saac ee ugu dambeeyay magaalada Muqdisho marka loo eego wixii ka soo bilaamayay galinkii dambe ee maqribnimadii xalay magaalada Muqdisho sida ay hadlaayeen saakay 2 saac waa gartay waanu imaan doonaa qayre oo ka baxay goobtii uu ku sugnaa oo ciidamadu ka dagaalamayeen taabacsan laakiin xagga waqooyiga Muqdisho iyo guri uu deganaa Sheekh Shariif ayaa dagaal ka socday inkastoo dagaalka dhanka howlwadaag uu istaagay dhankaas hadda xabaddu ma ka socotaa ma la is hor fadhiyaa waa sidee xaaladdu wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya guriga aad sheegtay inuu degan yahay ama guriga uu degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ee ku yaala agagaarka degmada gudaha degmada Cabdicasiis gaar ahaan agagaarka xeebta Liido lama soo warinin wax khasaare ah dagaaladii ka dhacay halkaasi rasaasta xoogan ee laga maqlayay iyadoo aan u sheegnay warbaahinta ma wararkeenii hore aan ku sheegnay in wariyaasha lagu amray inay ka baxaan halkaasi taasina waxa ay kaliftay in la ogaado dhaqdhaqaaqa iyo xogta ugu dambaysa halkaasi in wararka laga helo laakiin lama soo sheegin wax khasaare ah waxaana muuqata in dhinacyadu ayna weli hadda xal ka gaarnin iyadoo ay socdaan waan iyo wada hadallo ku aadan in xalka ugu dambeeya la gaaro si xabadda looga joojiyo magaalada iyo sidoo kaleba dhinacyadu ay isku horfadhiyaan gudaha magaalada iyo baraha muhiimka ah ay ka joojiyaan dagaalka maadaama ay ku yaalaan goobo ganacsi oo waaweyn iyo ayna tahay meelo dib u soo kabtay marka loo eego dagaaladii hore ee magaalada ka dhacay waa gartay waa hagaag aanu imaanno warkan la xiriira in qayre ama ra'iisul wasaarihii hore uu ka baxay gurigii dablida taageersan ay ka dagaalamayeen ilaa iyo shalay galikii dambe maxay ku soo dhamaatay arrintaasi xaggee buu soo aaday runtii arrintaasi waxa ay ku soo dhamaatay kadib markii ra'iisul wasaare qayre lagu qanciyay sida la sheegay in uu halkaasi ka baxo waxaana mar qura shaashada uu kala soo muuqday taliyaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaado oo isaga iyo ra'iisul wasaare qayre mar qura shaashada ka soo wada muuqdeen taasina waxa lagu sheegay in ay ahayd xalkii ugu dambeeyay ee laga gaaray heshiis ra'iisul wasaaraha qayrena lagu xaliyay
lagu qanciyey in uu halkaasi iskaga tago kadibna uu u guuro goobtii uu horey magaalada muqdisho kaga deganayay kadibna wadahadallo dib loogu soo laabtay maadaama waqti dheer ay ku qaadatay halkaasi ra-iisul wasaare khayre oo dagaal iyo ciidamada isaga taabacsan ciidamada dowladda Soomaaliya halkaas ku hor fadhiyeen. waa gartay waa yahay dhinaca kale marka suuqyada marka la eego had noqoto suuqa bakaaraha oo kale dhankan banaadir oo kale Soobe lambar 4 wadada dheer Maka al-Mukarrama ganacsigii iyo socodka magaalada inooga waran Maxamed. ganacsigu hadda wixii ka dambeeyay 12kii duhurnimo goobo badan oo xirnaa ayaa dib u soo firmay laakiin wixii ka horeeyay xilligaasi suuqa bakaaraha wuxuu ahaa mid xiran marka loo fiirsho dhankiisa suuqa bakaaraha una u dhawaa goobta dagaalku ka socday sidoo kale magaalada waxaa jooga ciidamo badan oo dawladdu halkaasi ay geysay oo meelo badan ay dhigtay taasina waxay yareysay dhaqdhaqaaqii badnaa iyo isku socodkii dadku ay ku tagayeen meelaha fog in ay gaaraan sidoo kale wadooyinka qaarkood waa xiran yihiin gaadiidku kama tilaabi karaan marka taasi waxay kaliftay in goobo badan oo dad safarro u soo gali jireen ama meelo fog uga imaan jireen ay xirmaan shaqadoodina aysan dhaqdhaqaaqoodii sidii uu awal u socdo marka loo fiiriyo wadada Maka al-Mukarrama ilaa iyo isgoyska Banaadir lambar 4 dabka waxaas oo dhan hadda dib ayay u soo furmeen goobahooda shaqadana waa furan yihiin dadkuna caadi bay isku dhex marayaan marka loo eego laakiin meelaha kale waa ay ka duwan yihiin oo saacad walba waxaa la filan karay isbedel inuu ku yimaado dadkuna dhagta ayay u taagayeen xaaladda sida ay tahay waa ay joogeen warmo kamaan aysan ahayn waa hagaag wararka kale aynu helayno sidoo kale waxaa ka mid ah in ciidamadii ka dagaalamayay guriga ra-iisul wasaarihii hore ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre gaadiidkii ay ku dagaalamayeen qoryaha laga furay taasi oo sida hadalka loo dhigay qayb ka ahayd wadahadaladii dowladda dhex maray isagana ay israaceen sida sheegtay Mahad Salaad oo taliyaha hay'adda nabad sugidda NISA dibna ugu laabtay hoygiisii oo ka deganaa gaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho arrintan marka waxay u muuqataa heshiis in lagu gaaray in gawaarida qoryaha laga furo ciidankuna aysan halkaasi lagu kala diro dagaalkana sida lagu soo gabagabay arrintaas ma waxay ahayd arrin waanwaanta ku timid Maxamed waa qayb ka mid ah waanwaanta laakiin waxaa jira sharci hore oo u yaala hay'adaha ammaanka ee gobolka Banaadir taasi oo ah in ciidamo wata gaadiid qori saaran yahay aysan magaalada mari karin qofku raba ahaado noocoo doono ha ahaado gaari qori saaran yahay inuusan magaalada mari karin baan ahayn gaadiid u socda furin hore ama gaadiid la ogsoon yahay hawsha oo ka qabanaya magaalada Muqdisho noocan ahayn gaarigaas inuu qori saarnaan karin marka waa mid kamid ah sharciyada aan la dhaafi karin in magaalada Muqdisho marka soo loo fiirsho qoriga hubka gaadiidka la saarayo ee qoryaha culus laakiin tan waa qayb kamid ah wada hadallada iyo waanwaanta lagu heshiiyey in qoryaha laga furo gaadiidka uu lahaa ra-iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre taasina waxa ay runtii qayb ka noqon kartaa sida muuqata in xal lagu gaaro dhinacyaduna ay ku heshiiyaan miiska wada hadalkana iskugu yimaadaan wixii ka soo kordhana daawadayaashana waan u soo gudbin doonaa way gawaaridii ciidamada dawladda wadooyinka yiil iyaga maxaynu ka ognahay ciidankii wadooyinka ma joogaan mise waa iyagana waa laga qaaday goobahaas sidii shalay ilaa iyo saaka ay u dhoobnaayeen ama ay saa'idka tarobada ugu ahayeen wadooyinka magaalada waa laga yareeyay oo xogay waa la qafiifiyay laakiin ma ka maqna ciidamo wadooyinka inay joogaan meelaha qaarkood waxa lagu arkayaa gaadiid ciidan oo ku jira baraha guryaha dhismayaasha dhexdooda ah oo baawur yaalaan si gaar ah meelaha looga shakiga qabo amaba looga cabsida qabo in ay ka imaan karaan dhinacyada mucaaradka ah oo dad taabacsan halkaas ka soo bixi karaan ama ay ka bilaaban karto arrimo ku aadan mudaharaad ama dad isku soo baxay ka samayn karaan waa gartay waa hagaag dhinaca kale ilo xoggaal ah oo HBN ay la hadashay waxay sheegayaan in waanwaan ay u socoto dowladda iyo madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaana la sheegayaa ilaa iyo caawa 8 fiidnimo in la sheegayo in loo baahan yahay inuu ku laabto garoonka aadan cadde u deganaa gurigiisii halkaa inuu ku laabto kana baxo aagga xeebta Lido ku sugnaa arrintaasi ilaa hadda
la iskuma afgaran laakiin dowladdu waxa la sheegaya inay qabatay ilaa 8 fiidnimo caawa sida wararka ugu dambeeya ay sheegayaan inkastoo ay dhici karto waxayna isbedelaan wixii ku soo korana waynu arki doonaa maxamed aad baad u mahadsan tahay maxamed waa mahadsan tahay mawlid haddaan ku sii daro waxaa jirta wadamada beesha caalamka runtii iyagoon laftirkooda qayb ay ka yihiin arrimahan ku aadan wadahadallada oo waxa ay dalbanayaan in miiska wadahadalka laiskugu yimaado marka loo eego qaramada midoobay Mareykanka iyo UK oo war-saxaafadeeda soo saaray igadna way ku jirtay iyadoo oo walaac ka muujisay maadaama ay sheegayso in xaaladda siyaasadeeda Soomaaliya oo haatan u baahan in si indha fiiqan oo gaar loo wada og yahay looga wada hadla siyaasadda Soomaaliya maadaama mucaaradka sida ay doonayaan iyo sida dawladdu doonayso aan la wada qaadan karnin si dhexdhexaadana la iskugu yimaado marka wixii warkaas ka soo kordhana waan usoo gudbin doonaa daawadayaasheena barnaamijyadeena dambe iyo wararka Soomaalida oo caawa ayaan ugu soo gudbin doonaa daawadayaashuna waa mahadsan yihiin barnaamijkii wararka maantana intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal